الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. هذا لندن bay ka soo qortay waxa ay leedahay gabadhan walaalanahay ayaanu isa seegnay bani aadamku isqabtaa laakiin anigu waan cafiyey iyaduna imay cafiyin waan u sheegay inaan cafiyey maxay la gudban cibaadadaydii miyay buraysaa waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay ka aqbalo waayo adigu kaalintaadii waad qaadatay cafiskii quraan iyo xadiisba uu ku farayay waad qaadatay marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu camalkii cibaadada ka aqbalo iyadana ha ka quusanine ku celceli la'alla Allah yahdiha waxa laga yaabaa inuu Ilaahay hanuuniyo oo qalbigeeda uu soo jeediyo. samra Faransiiska ka soo qorto waxa ay leedahay hooyaday iyo walaashay waxaan isku qabanay oo isku khilaafnay oo hooyana ay ugu habaaraysaa gabadhan walaalanahay in la dulmiyo oo xuquuqdeedii la qaato markaan waxaan leeyahay ka daaya iyaguna way iga safteen iyadiina way dulmiyayaan habaarkay hooyo habaaraysaa ma saxba jawaabtu waxa weeye maya inay ku habaartana xaq uma laha habaarkaasina ma hirgalaya hadduu dulmi yahay iyo gardarro yahay adigu haddaad leedahay qofkan wixiisi ha la siiyo iyaduna ay leedahay laga qaado waa dulmi iyo gardarro marka adu sidaad hooyada u wanaajin lahayd waad wanaajin doontaa ha fogeynin dhibyo idin dhex marin wixii gafa xaggeeda kaaga yimaadana u dul qaado laakiin qofka waxa lagu adeecaa hadduu waalidka yahay hadduu madaxda yahay cid kastoo laga tala qaataba waxa lagu adeecaa wixii macruufa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دنبي حد قدبها إسوكا شنين با إلهي سبحانه وتعالى لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق يدا إلهي العاصية يعيد كلا لما أدعي عبد الرحيم مقدشو كسو قري وحا أولي هي هدي آن أغان وغتغو ذكري الله آخرية مركا لغا سو توسو ركوع له يذكري ركوع له أدان كتغو ربنا marka uu qofkii soo tooso sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd hadaan ka tago ogaan uga tago miyay salaadii buraysa sujuudu sahwi ma lagu yeelanayaa maya sujuudu sahwina lagu ma yeelanayo salaadiina ma burayso laakiin aad ka tagtaa sax maaha nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli utukada sida aragteen aniga u tukanayo kale marka sunnaha lama rifo lama naaquso waa waxa ajrigu inoogu badanayo waana isbeerkii faralka marka in la fudaydsadana maaha. Suhayb Suldaan burcu ka soo qoray waxa uu leeyahay waxaan ka shakiyay ragcadihii salaada markaan ka baxayna sujuudu sahwi ma la igu leeyahay jawaabtu waxa weeye sujuudu sahwina waa lagu leeyahay ragcadaad inta ragcadood aad ka shakidayna dawana dhamaystirto oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray mid inaga mid markuu shakiyo salaada uu ku shakiyo ma labada timi ma saddexbaad la timi labaha ka soo qaado saddexaad ha la yimaado ama tii afraad ha la yimaado marka mar walba sida yaqiinta ah ayaa lagu xisaabtamaya marka iyadoo ragcadaha qaarkood aad ka shakisan tahay macnaheedu ma aha inaad salaadii ka baxdo oo kuma banaanto salaadii ka baxdo inaad sujuud sahwi ku kabto sujuud sahwiga waxa lagu kabaa wixii sunna ah laakiin wixii farala hadiya jeer ka dhiman ma kabaya sujuudu sahwi hadduu rukuuc yahay hadduu sujuud yahay iyo hadduu ragcad yahayba marka taana inay dadku bartaan ay ku xisaabtamaan way Ahmed Muqdisho ayuu ka soo qoray waxa uu leeyahay laba xaas baan leeyahay mid kamid ah baan habeenkii soo maraa caruurta wuxuu soo dhigaa habeenka xataa ta kale aanu leeyahay ma saxba jawaabtu waxa weeye maya waa dulmi waa gardarro caruurta meel kula ballan ama waqtiga aad habeenka aad u timaado ugu dhig halka laakiin ruuxa dumareed habeenkeedii u leedahay taa kale inaad soo marto sabab aan daruuri ahayn ma aha imaka inta jeer aad soo marto wana tan kale u qalaysaa hooyaatinka habeenkii buu asal yahay waxaan la yiraahdaa qasmiga ama in loo cadaalad sameeyo labada dumar asalkiisu waa habeenkii
marka habeenkii waxaa loo soo mari karaa xaalad adag oo daruuri ah sida cabsi iyo cudur iyo waxyaabaha, laakiin arrimaha waxbarashada iyo faakahaysiga inaad ula joogtood waqti la qaadata maaha. haddaad soo salaantana waa inaad tii kalena salaamtaa haddaan sababi jirin. cadaaladdu aad bay muhiim u tahay, qofkuna inuu is ilaaliyaa waa waajib. cabdiraxmaan ameriku ka soo qoro waxa uu leeyahay, qof ehelkayga ah oo dhintay ma ka soomi karaa qof kaloon qaraabadiisa ahayn? jawaabtu waxa weeye maya. waayo rasuulkeenna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu, xadiidkii saxiixa ah calaa macna alxadiid. qofka dhintay ee soom lagu leeyahay, qof weligiisoo xigtadiisa ha ka soomo. marka xigtadaasaa ka soomaya, mar kaliya ka soomi karaan iyaga oo badan, qof quraa ka soomi kara. laakiin waa markuu soo qalayn karayay, soomina karayay, ee uu soomina waayey qalaynna waayey. hadduu laakiin qofkani cudurdaar lahaa dhib ma leh, waxba laga soomi maayo. marka dadka qaraabada unbuu nebigu ku qayday calayhi salaatu wasalaam. warda Hargeysa ka soo qorto waxa ay leedahay, nin baan guur ka wada hadalay, intee buu iga eegi karaa jidhkayga? wuxuu kaa eegi karaa wejiga iyo labada gacmood. intaa wejiga oo quruxdaadu noocay tahay uu ka garan karo, iyo intaa labada gacmood laga faraxasho oo jidhkaagu noocuu yahay uu ka fahmi karo. intaasu. laakiin wixii intaa ka dheeraada maya. saasay culimada islaamku u badan yihiin, saasuu daliilkuna xoojinaya. meelaha kale cawrada ah uma sii gudbi karo, kaama eegi karo. وهذا ما أقوله وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.